السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عروسة بلا أو دوغا براتين قرحين تاروستا ديارين تاروستا فضلا هدياد نوغو عصب تاهاي channelka subscribe saar saad ula socoto waxyaabahan soo gelino ood ka faa'iidi doonto in badan like and share noo saar. maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan serum. dad badan bay soo weydiiyay igu dhahay serumka ugu fiican aad wajigaaga u isticmaashaa waa maxay, serumka ugu wanaagsan. anu runtii serumyo badan ayaan isticmaalay oo markasta aan suuq tago ama markasta oon meel shirkad ay wax keento waxaan iibsadaa yani serum fiican aan arko oo markad meel fiican laga keenay oo original ah waan iibsadaa waana soo tijaabiyaa. imika serumyadan aad arkaysaan ka vitamin C ga kan qalaftiis vitamin C ga Fair and White labadaba waan tijaabiyay. waxaa jira laba serum oo iyaguna kala oo qurux bilahayso oo labadana aan tijaabiyo. imika waan arki waayay laakiin sawirkoodan idiin soo dhigayaa. imika waan yara arki waayay marka si u kala fiican yihiin ayaan maanta idinku kala sheegayaa. kan waxa weeyaan Fair and White waa serum waxa vitamin C aan idinku soo dhaweeyo. waxaan oran karaa waxa weeyaan waa ugu wanaagsan wax alla waxaasoo dhan waxa weeye ka ugu wanaagsan. run ahaantii serumkan waxaan isticmaalay ilaa 3 years 3 sano meelahaas waan isticmaalay. weliba hargeysa mu oolin markii hore, imka dhawaan baa la keenaa filaya hargeysa. anu waxa laga keeni jiray Imaaraadka laga keeni jiray serumkaas. maasha allah, horta Faransiis baa lagu sameeyay ma sheegin. waa serum xoog fiican. shirkaddan Fair and White baa sameysay, Paris baa lagu sameeyay. serumkani waxa weeyaan waa serum la isku arkay qof kasta oo isticmaalay uu ka soo amaan sheegtay. aniga tijaabadaydan idiin sheego, anigu markii hore kareemo yani marba kareemo iska isticmaali jiray, laakiin serumkan intaan isticmaalay xataa kareemo uma baahan. wajigaaga wax kale uma baahanayo, kareem uma baahanayo, wax kalood mariso uma baahanayo. serumkan wuxuu kaaga filaanayaa, wajigaaga dhalaal buu siinayaa. yani habeenkii markaad ku seexato aad subxii soo kacdo wajigaaga nuuraya baad soo kacaysaa. markaad muddo wado adoo ilaa isbuuc markaad wadana waxaad arkaysaa wajigaaga iyo cadaaday, wajigaaga iyo nuuray. ayaamaha hore aad bilowdo laga yaabo inuu qolof yar kuu sameeyo, laakiin markiiba qolof taayir uu kaa ridayaa. deetana maasha allah wajigaaga wuxuu ka dhigayaa qurux maasha allah. wallaahi qof kastoo ku arkaa dadku waxay ka odhanayaan yani kuma rumaysanaya laasim kareem baad isticmaasho noo sheeg kareemkaad isticmaasho ay ka odhanayaan. marka kareem iyo intii kiimikashiisa kana kaaga filan. waa vitamin C, waa xaaja dabiici waxba kuma yeelayo. haddaad joojiso iyo haddaad wadaba wajigaaga wax dhibaato oo u keenayaa haba yaraata ma jiro. anu 3 sanaan waday maasha allah wajigayga xabad fiina xabad madow xabad yani ay xaaja ma wale. marka maasha allah idinkuna ka faa'iideysta walaalahay baad tihiin oo wanaaga la jecelahay. ka faa'iideysta baan idin leeyahay serumkan. intaan serum isticmaalay anu waxaan isticmaalay 4 serum. waa kan iyo kan kale iyo 2 kale oo sawirkooda idiin soo gelin doono. imka waan iga yara qarsoomin waan arki waayay. 4 serum baan isticmaalay. 4 kan mid u dhigmaa haba yaraatee kuma jiro maasha allah. wallaahi wax kelmad laguma soo koobi karo kan. marka waxaan idiin sheegayaa mid walbana faa'iidooyinku leeyahay waxyaabuu tarayo. serumkan vitamin C ga Fair and White waxa kale oo ku qabanaya waxa weeyaan madmadowga uu kaa biinayaa. dadka madmadowga leh, dadka hadhku soo galayo, haddii labada dhinac
harkaa soo gelayo, haddii indhaha hoostooda harkaa soo gelayo, haddii usanka madmadow iyo adoo hareer iyo ama dibnaha agtooda madow kaa soo gelayo, intaba uu kaa biinaya. marka ayaan la moogaani run ahaantii waa serum cajiiba. markaas aynu gudubno serumka labaad, waxa weeye serum vitamin C. waxaan filayaa kan reer Mareykanka lagu sameeyey. isagu waxa weeyaan wakaawidika sawirkiisa arkaa, wuxuu ku siinayaa, ku dhalaalinayaa wejigana, uu ku cadaynayaa, wuxuu kala sameynaya anti aging. kan wuxuu u fiican yahay badanaa dadka da'doodu yaraa, coorka soo yara galayo, dadka 40 ama wixii ka sareeya ah ayuu u wanaagsan yahay 100%. dadka caadiga ee hablaha dhalinyarada qudhooda way isticmaali karaan. waniga anigu soo iibsaday isticmaalaya, saad aragtaan waniga dee wax ku sii jira intii ugu hooseysay waan kasoo wada baxay. marka waad isku isticmaali kartaa labada serum. yani markaan ku leeyahay waad isku isticmaali kartaa macnaheedu maaha waad isku dhex dari kartaa, laakiin anu kan habeen dhaaf badanaa u isticmaala ama 2 habeen dhaaf. beriyo hore daily u isticmaali jiray, laakiin imika habeen dhaaf oo kale. marka habeen kanaan iska isticmaalaa. wallahi maasha Allah, wejiga ka dhigaa qurux buu ka dhigaa. waxaan kaloo idinku soo xigsiinayaa labada serum ee kale, iyagana iyo faa'iidooyinkooda. waxa kale oon idiin wadaa qofkii aan serum haysanin, leh serum ma haysto, waxyaabo kalean ku bedelan karaa ma jiraan, waxyaabo kalean kaga maarmi karaa ma jiraan. waxaan idiin sheegayaa ood kaga maarmi kartaa. dadka wata koowaad, dadka maaragtay wejigoodu qalalan yahay, wejigoodu qolofta leeyahay, wejigoodu qalayl badan ka dareema, labadaas midkood kaa jecesha baad isticmaali kartaa. imika saliidan oo kale waxa weeyaan saytulows alxilu weeyaan. saytulows alxilu waxay sameynaysaa, wejigaad isticmaalaysaa, intaad mariso wejigaaga ayaad ku duugaysaa, indhaha hoostooda kale waad marinaysaa. haddii indhaha hoostooda barar ku leeyihiin, indhaha dushooda kale haddii ku leeyihiin madow, waad marinaysaa oo kaa biinaysaa. jirka waad marinaysaa, niciin bay ka dhigaysaa. timaha waad marinaysaa oo ku bixinaysaa. saliidan lama soo koobi karo waxyaabaha ay tarto. waa saliid aad iyo aad u cajiiba. anigu lagama yaabo inay ka maqnaato alaabtayda, yani kabarkayga, yani shoppingkayga lagama yaabo saliidan inay ka maqnaato. waxyaabaha number 1 in aan ka maqnaan ayay tahay. markaa jirkaad marinaysaa, waxaad ku darsan kartaa khaldaadka jirka, waxaad ku darsan kartaa khaldaadka wejiga. saynu horeba usoo aragnay khaldaad badan aynu sameynay oo kusoo daray, sida khaldadii aynu berigii sameynay oo kale, xagga meelaha madmadow, meelaha hoose la marinayay, saliidan ka koobay ahayd. waxyaa khaldado kale wejiga asna khaldadaha aad u isticmaalayso waad ku dhex darsan kartaa. weliba dadka wejiga qalalan, dadka dry faceka ah xoog bay ugu wanaagsan tahay. dadka ka cabanaya indhaha hoostooda madow ama indhaha korkooda madowna number 1 anigu saliidan aad waxaan ugu isticmaalaa. waayo wejiga dry face weeyaan. wejiga qalayl oo kale markaan ka dareemo waan mariyaa, waan ku duugaa. dariiqada loo duugayana insha Allah wejiga waan idiin soo gelin doonaa. waxaa jirta mararka kale ee wejigayga aan qolof oo kale yeesho, waan mariyaa. mararka kale indhaha hoostooda kale madow aan iska dareemo, oo ama indhaha hoostooda madow iga soo galo, ama barar iga soo galo, iyadana waan mariyaa. uu kaa biinaya, degdeg bay kaaga biinaysaa.
marka maasha allah ayaan la moogaanin. Timahaad marin kartaa, wejigaad marin kartaa. waa saliid loos bay ka samaysan tahay, waa saliid dabiiciya maasha allah. meel walba waad ka helaysaa, suuqyadeenaad ka helaysaa. ta kale aad wax walba kaga maarmi karta isagana aad serum kaga maarmi kartaa waxa weeyaan vitamin E oil. vitamin E oil saynu uga soo sheekaysanay videogii kan ka horeeyay. vitamin E oil waxa weeye sin faa'iidooyinkiisa uga soo sheekeynay. waxa weeye kansalka jirka ka hortagaa, wejiga coodhka uu ka biiya, yani dadka aydku maaragtay 40 dhaafeen da'doodu, coodhka wejiga uu ka biiya. waxa kaloo dadka qalaylka wejiga qalaylka iyo qalofta ka cabanaya iyaguna oo isticmaalaya qalaylku ka biinaya, madmadowga uu biiya, indhaha hoostooda isaga laftiisa uu biiya, indhaha hoostooda iyo korkoodaba. timaha shaambooga kale waad ku dhex darsan kartaa, saliidad ku dhex darsan kartaa. wuxuu kaloo sameeyaa xididada, dadka xididada ka cabanaya xididada wuu qarayaa. wuxuu kaloo sameeyaa khaldadaha jirka waa lagu dhex darsadaa. kareemka ama qasqaskaad qooshanayso waad ku dhex darsanaysaa si uu nafaqo kuu siiyo, si uu kuu kobciyo.